ciidamo si gaar ah u tababaran isla markaasina la magac baxay dulmadiid una abaabulan sidii al-shabaab ay ugu xureen lahaayeen deegaanada hoos imaanaya koonfur galbeed ayaa howlgallo qorsheysan oo ay ka sameeyeen tuulooyin dhaca degmada Bardaale ee gobolka Baay waxay kaga horeeyeen maleeshiyaadkii al-shabaab oo dhowr iyo 20 sano ee la soo dhaafay isla markaasina dhibaatooyin aad u fara badan ay u geysanayeen dadka shacabka ah ee degan halkaasi. kooxda maleeshiyaadka ee ku sugnaa tuulooyinkan laga xoreeyay ayaa waxaa dhibaatooyin fara badan ay u geysanayeen dadka shacabka degan halkaasi oo u badnaa xoolo dhaqato beeraley waxaana dadkii deganaa deegaanadaasi oo ahaa xoolo dhaqato beeraley dhammaantood xilligan barakac ay ku yihiin degmooyinka Baydhabo iyo Bardaale iyagoon u soo adkaysan waayay dhibaatada kooxda argagixisada ay ugu geysanayaan deegaankii muddo ay ku noolaayeen. ciidamadan ayaa deegaanada howlgalka ay ka sameeyeen isla markaasina ay kaga sifeeyeen kooxda argagixisada waxaa ka mid ah Madabuun iyo Eelheli, Hobaal Daraanla, Makiina Dhoosa, Qariib iyo Qanyarey, Iskiri iyo sidoo kale Foolfayle kuwaasoo dhammaantoodii hoos imaada degmada Bardaale ee gobolka Baay. kooxda argagixisada al-shabaab oo muddo sanado ah ku sugnaa halkaasi isla markaasina ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka ayaa kadib markii ay maqleen inay kaabiga ay ku soo hayaan ciidanka dulmadiid waxay iskaga baxeen dhammaan tuulooyinkaasi oo tiro ahaan gaarayay 10 kuwaasi oo dadkii deganaa ay soo barakiciyeen kooxda al-shabaab. ciidanka dulmadiid ayaa waxaa sidoo kale xilligan ay kaabiga ku hayaan deegaano ay ka mid yihiin Baagay Horgoylow, Boorama iyo sidoo kale Kaayow oo dhammaantood hoos imaada degmada Bardaale waxaana qorshahoodu uu yahay sidii gebi ahaanba ay ugu sifeen lahaayeen kooxda argagixisada guud ahaan tuulooyinka hoos imaanaya degmada Bardaale ee gobolka Baay. ciidanka dulmadiid ayaa sidoo kale wadaa qorshooyinka iskugu furi lahaayeen wadooyinka xiriiriya degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Baay oo xilligan howlgallo adag ay ka wadaan. Siraaj Shaysa, warbaahinta qaranka, Baydhabo.